السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال دمانتين بميل كستا جوجتان halkani waa telefishinka caalamiga ee Kalsan TV studio-hiisa ku leeyahay magaalada Hargeysa anigana magacaygu waa Sagal Guure waa mar kale iyo barnaamijkii kaftanka Kalsan TV oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan habeenka axad soo galayso isla markaasna ay sii baxayso sabtidu sagaalka caweysnimo markay tahay saacada Afrika sidoo kale hore waxaad la socoteen inuu barnaamijku soo galo 8:00 laakiin habeenku habeenkiyune bar ayaan idinku darnay sida idinkoo maxaan idhaahdaa ay waqtigiini soo qaatay marka guriga timaadaan aad barnaamijkana ugu caweysaan barnaamijku marba marka ka dambaysa toddobaadka ka dambeeya uu ka xisaab badan yahay in toddobaadkan waxaan idin wadaa su'aal aad iyo aad u xiiso badan waxaan kaloo idin hayaa sheekadii aan idinku ballan qaaday ee toddobaadkii hore aan ka gaarsiin waayay isla markaa caawa gacantayda ayay ku jirtaa halkan ayaan idinka akhriyi doonaa haddaba caawa wada dhici doontaan wan huba su'aasha aan soo weydiinay bulshada ku nool magaalada Hargeysa si fiican intaan sheekada idin akhriin qaar kamida dadkii oo dhan maahe bal qaar kamida dadka aan idin ka soo duubnay habeenkan caawa nala daawado isla markaasna si wanaagsan noogu la caweeyay وهاجاك داوديال ومركله iyo barnaamijkii kaftanka iyo Kalsan TV aanu idin soo gudbinayno isla markaasna waxaanu taaganahay koonaha magaalada Hargeysa waad aragtaan Hargeysa oo qurux badan ayaa naga dambaysa waa markale iyo kaftankii iyo Sagal Guure iyo Aadan Caydiid oo si toos ah idin ku soo diyaar garoobay ee si wanaagsan noola daawada waa ku salaamay waan ka qaadolaanay kaftanka iyo Kalsan TV ku soo dhawow waan ku dhawahay waxaan ku leeyahay su'aal baan ku weydiinaya habeenkii ma riyoota ha maxaad ku riyoota wax badan qof waliba riyadiisa waxa uu ku jiro dhan ku riyada halkan imika kama sheegay laakiin waxaan ku riyada hadda wax walba horta wax badan waan ku riyada adiga imika kale qof waliba hamigu leeyahay ay ku riyada tawakas ayo aad waa ku salaamay waa laga qaado wada waan kugu soo dhaweynaya kaftanka iyo Kalsan TV aad baan ugu dhawahay su'aal ayaan ku weydiinaya habeenkii ma riyoota ha maxaad ku riyoota waxyaabo badan مع الآخر كرياضة هرتانو يدا آخر لا جوجان هي كرياضة ما هي توكا آخر أضيف كده نكمل ما مسكلي جا ما هي والله أنا جيو مد أن صاحبنا هاي أو للتاجي هي محشر كي وينها هاي وقف والباء أتشر كي سجع ما كسرته هاي يا ما شاء الله هي توكا ما شاء الله أدي ما تسمع أدي توكا قدرة السلام عليكم عليكم السلام magacaaga noo sheeg عاول عبد شردي kaftankii Kalsan TV kugu soo dhaweynay waan soo dhaweynay anaguna su'aal baan ku weydiinaya habeenkii ma riyoota maxaad ku riyoota gabadhan jeclay aadan waxay joogtaa Hargeysa ya Hargeysa joogta ku noosha marka maxaad inay iyada miya iyadoo inay yaro joogtay imika magaalada Hargeysa aad nimika waxaan ugu hami weynaa soo hooyo oo dhameeyaarkeeda waan ku hambalyeynaa anaguna ku hambalyeynaa salaam calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته su'aash baan ku weydiinayaa barnaamijka kaftankii Kalsan TV kugu soo dhaweynay way aad baan u dhawey su'aashana hore u gallo habeenkii ma riyoota maya walaal ma riyoodo wallahi ma riyoodo marka ma riyoodo maya way jirtaa waqtigan riyoodo laakiin waayadan ma riyoon aad dad mahadsantahay oo ku salaamay waan ka qaado walaal barnaamijka kaftankii Kalsan TV kugu soo dhaweynaya magacaaga noo sheeg waan ku dhaweeyay waxa la ilaa Asad Xasan Maxamuud asad su'aal baan ku weydiinayaa habeenkii ma riyoota oo dhacda habeenkii riyoodo kulkulka qaad ku riyoota waxyaabo kala duwan baan ku riyoodaa haye كوري وانقطعي أبغى ناشك وشذا وشك ده ورتريادو سو النبي بس الله عليه وسلم شيء وي كلا دوينت ما قرأتها ريو wanaagsan wad ku riyoon kartaa adoo meel wanaagsan joogaado wax wanaagsan sameeyaa riyo xunoo kala dil iyo dagaal iyo wax noocaas ah ku riyoon kartaa kowde riyo kala ka duwan noo jiraan iyaga intaas aan ku soo koobaya aan barnaamijka kaftan Kalsan TV aan ma socdaa aan waa kugu soo dhawaanay kaftanka iyo Kalsan TV waa fiican maxaa ugu dan leedahay markaa su'aal baan ku weydiinayaa habeenkii ma riyootaa haa riyooda riyadii kugu qosolka badnay nooga sheekay riyadii igu qosolka badnay riyalkii igu qosolka badnay waxay ahayd riyadii aan godka ku dhacay haye koodhe
dabeedna waa lagu laalaadiyey god baa lagu tuuro lagu laalaadiyey dabeedna waxaan ku dhidee anoo shar ka sii laalaado man baraarugay ayaad kacday aha waa tahay riyaanahay maasha Allah aad maadsantahay waa ku salaamay waan ka qaaday su'aalayaan ku weydiinaya barnaamijka kaftanka iyo kalsan TV-na kugu soo dhaweynayaa habeenkii ma riyootaa iyadii kugu qosolka badnayd nooga sheekay Allah iyaro noo xadiyaro riyadii ugu qosolka badnayd soo marta ما حسن كره والله ما ادري لو ها وين لوي متضبط لكن حسنتي ملا يا متضبط حسستها ريي قوده قصل ريي قوده قصل ده ريي قصل كبدنان كوريودا واحد كبدن aad u taageeraan oo kubad daawanaya kuriyooda deedna kubad ciyaaraya shirida dusheedan day hurday magaraas deedna ninba kubadiisa laaday aniga hurduma dhabalka cayuun ده صرت ما لا ضلك تجيب باي شبتيو والله كوي bulshada ku daawanaysa magacaaga sheeg bulshada daawanaysa magacaaga waxa Cabdul Qaadir Cabdullaahi waa ku salaamay walaal waa ka qaadanaa ku soo dhaweynay barnaamijka kaftanka Kalsan TV adigoo bulshada magacaaga u sheegay su'aal baan ku weydiinaynaa habeenkii ma riyootaa magacaaga waxaan soo maraadan ma wala ma riyoodo ma waliga hadda ma santahay ayo la waa hagaag daawadayaal aynu intaa kaga soo noqon waxaan u maleynayaa inay in badan oo idin kamid si qoslayeen aniga waxa igu qosolka badnaa wiilkii anigoo iska hurda ayaan waxaan ku riyooday anigoo kubad ciyaaraya kadibna deyntan isla kacay ayaan sariirtii laad aad u xoog badan aan ka jaray kadibna wuxuu baan isarkay inaan maxaa dhahdaayay aan qolkayga jiifo in dadku way kala duwan yihiin say uga jawaabayeen su'aashaas oo ahayd hadii su'aashaas oo ahayd ma riyootaa se maxaa kugu qosol badnaa riyadii kugu qosolka badnayd maxay ahayd si wacan ayaan u maleynayaa inaad uga bogateen bal qaybta kalena waynu isuga soo noqon doonaa aan idin akhriyo sheekadii caawa waxaan u maleynayaa inaydun qosol alleelehe aad in badan sii wadi doontaan sheekadan waxaan ka soo xigtay wiil la yiraahdo Cabdisamed Geere isla markaasna asiga qudhiisa warbaahinta kamid ah sheekadan waa sheeko qosol badan waa sheeko xiiso badan balaan idin akhriyo oo aan sheekada idin dul maro sheekadu laakiin riyadii bay la xidhiidhaa oo iyada qudheeda ayaa riyo ku salaysan marka bal riyadan aynu isla eegno sheekada halkan inoogu qoran wuxuu yiri shalayto waxay ahayd maalintii iigu xumayd noloshayda waxaan aaday garoonka diyaaradaha aadan cadde anigoo raba inaan u safro magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka waxaan garoonka gudihiisa ku arkay haweeney qaylinaysa oo sheegaysa in laga xaday telefoonkeedii cajiib tolo maxaa ka daawadayaal ka soo socda aan sheekada bal ku sii socdo aniga oo raba inaan caawiyo ayaan qayb ka noqday dad koox ah oo ku soo xoomay haweeneyda hayeeshe markay aragtay telefoonkayga ayay la soo booday alla telefoonkayga waa ka oo wiilkani wato cajiib maxaad u maleynaysaa inankii ku dhaceen bal aan wali sii wada sheekada habeen farikama qodoma dhadhowa dadkii ayaa hal mar soo wada eegay waan isku naxay waxaan garan waayay waxaan sameeyo kadib iyada oo tuuga ku qaylinaysa ayay aragtay kadibna iyadoo tuuga ku qaylinaysa ayay ku dhagtay kuleytigayga ama kalarka inshaarka kalarkiisa waxaana indhaha igu dhuftay dhirbaaxo xanuun badan oo wajigayga guduudisay amaba wajigayga caseeyay dadkii meesha buuxay oo rag u badnaa iyaga oo bilaabay inay garaacaan balse nasiib wanaag anigoo ay naftu igu daba yar tahay waxa iga soo gaaray nin booliis ah oo dadkii iga celiyay alleele ilaahu waa noo waayeen waxna tara alleele ninka uu caawiyay kadib aniga oo tabcaan ah ayuu meel gooniya igeeyay waxaanu i weydiiyay sida ay wax u jiraan waxaan aniga oo ilmeynaya wajiguna i bararsan yahay u sharaxay sida ay wax u dhaceen kadib wuxuu bilaabay inuu na kaxeeyo labadeena oo nageeyo boolisku xarun ay ku dhexleeyihiin garoonka aniga iyo haweeneydii telefoonka ayuu u dhiibay wuxuu yiri amaba uu yiri garaaca telefoonkaaga amba way wacday waxaana ka qabatay gabadheed oo u sheegtay inay telefoonka uga soo tagtay gurigeeda
mar labaad ayay ilma iga timi waayo waa lay bahdilay waa lay jirdilay waxaana laygu yidhi tuuga ayaa tahay alla inanka maxaa qabsaday bal sheekada aan wali sii wada daawadayaal aad bay sheekada u dheertay laakiin waa sheeko xiiso leh iyana ka caajisisin maraqii ama intii ugu macaaneydba xagga dambe ayay ku dhantahay ninkii booliiska ahaa ayaa haweeneydii ku yiri raali gali wiilka nabsiga aad ka gashay kadib waxay iyadoo ilmeynaysa iga codsatay inaan cafiyo waxaanay boorso ay garabka ku sidatay kala soo baxday jeeg bangiyeed waxaanay ku qortay $500 way ii soo taagtay iyada oo ilmeynaysa de waa gabadh wanaagsan oo mar haday wiilkii ay mobilkiisi ku qabsatay waxay rabtay macnaha inay samayso raali gelin oo inanka halkaas lacag ku siiso waan taageersanay waa qof wanaagsan gabadhaas in aniga injeegaas igu soo baxa ayay ahayd aniga oo raba inaan ka qaato ayaan gacanta soo taagay hayeeshe waxa indhaha faraha iga galiyay saaxiibkay oo agtayda jiifay markaas ayaan indhaha kala qaaday waxaan ogaaday inaan riyoonayo oo aan jiifo sariirtayda hurdada cajiib dawaanigii riyadu bay sheekadu la xiriidhay wali laakiin aan ku sii socdo sheekadan waxay hurdada ku heshay saaxiibkay Mahdi Maxamed oo ilaa hadda ka xun lacagtii oo ilaa hadda wuxuu wiilkaasi ka xun yahay lacagtii ku dhaaftay riyada ama bajiifkii asagoo uu ku dhex jiro oo riyooday iyada waxa soo dhan loo sameeyay wahagaag sheekadan ka baro adigaan qiiroon adigaan wax xubsan iyo sida daqiiqada gudahood farxad iyo murugo loola kulmo alleelaha sheekadaasi waa sheeko xiiso badan riyadiina way la xidhiidhaa Cabdi Wahaab Ingire oo sheekada ka soo xigtay isla markaasna soo dhigay bartiisa uu ku leeyahay Facebooka na aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekadu waa sheeko xiiso badan waa sheeko qosol leh waa sheeko riyadan la xidhiidha daawadayaal runtii mar walba waxaan halkan la fadhinaa oo halkan u soo fadhiisana waa idinka qancintiina iyo sanad barnaamijkan maxaa dhacay uu xiiso idinku yeesho awal hore waad xiiseyn jirteen waad jeceshihiin waad la socotaan waan ogahay balse yeeshee inaad maxaa dhacay habeenka ka dambeeyay barnaamijku ka dambeeyo inuu ka xiiso badnaado oo aad la dhacdaan idinka qudin hore waan idinku sheego waxaan idinku yiri hadii aad haysaan wax sheekooyina ama qof ku dhacay ama idinka idinku dhacay maxaa dhacay inaad noo soo dirtaan oo aad noogu soo qortaan xagga ay committee-ga hoose halka baraha marka la soo galiyo bulshada ama YouTube-ka barta Kalsan TV uu ku leeyahay ama page-ka Kalsan TV halka inaad noogu soo qortaan wax alaaliyo wax sheeko xiiso leh haysan aynu dib ugu noqono barnaamijkeeni oo maxaa dhacay aad iyo aad u xiiso badan habeenkan caawa ugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka ee Kalsan TV su'aal baan ku weydiinayaa adiga magacaaga noo sheegaya habeenkii ma riyootaa magacaaga ku bilow magacaygu Iskariim Maxamed Cali barnaamijka aad baan soo dhaweynayaa haddaan ka jawaabo su'aasha ayada kulay dadku riyada ku kala duwan yihiin qof kastaba wuxuu ka hamiyo ama saacadii ugu dambeeyay soo jeeday niyada ku sii hayay ayuu ku riyoodaa marka badanka riyooyinku kala duwan yihiin jacayladana lagu riyoodaa badan anigu mararka qaar jacaylkii ku riyoodaa marka qaar sheekadii kuugu qosol riyadii kuugu qosol nooga sheekay riyadii ugu qosolka badnaa waxay mid ciyaalnimo way tala noqonaysaa waxay kulay xilli asxaabteedu la joogo oo bariga carruurnimada markaa ayaan waxaan tagnay meel adigu riyaheeda waxaan tagnay meel ayoo kala ah kadib waxaan iriiday adu bahal kadib waxa dhacday inaan anigu ordi kari waayay waan kufaa waan qayliyaa saacadii ugu dambeeyay hurdadeeda waxa dhacday inaan qayliyayba oo markii dambe arkeen oo leedka shidayba oo qolka dhex fadhiya ilaa xaafadii soo kacdayba waa sida aad iyo aad mahadsan aad baan ka qaaday waan ku faraxsanahay inaad tahay gabadhii ugu horeysay ee barnaamijka ka soo qayb gasha barnaamijka kaftanka ee Kalsan TV ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su'aal baan ku weydiinayaa tan su'aasheen hore u gallo habeenkii ma riyootaa habeenkii ma riyoodo maya waxaan islaaway riyootayo sheekadii riyada ugu qosolka badnayd bay kaaga sheekeynaysaa marka hadaad riyoon aad iyo aad mahadsantahay su'aal baan ku weydiinayaa tan su'aasheen hore u gallo habeenkii ma riyootaa bulshada ku daawanaysa magacaaga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Xamse Khadar Cabdi su'aasha hadii soo daadego horta su'aal la yaab runta habeenkii ma riyootaa oo riyooda si fiican riyadii kugu qosolka badnayd nooga sheekay riyadii ugu qosolka badnayd
horta way fara badan yihiin laakiin haddaan xasuusto run ahaantii waxay ahayd أنا نقضي جناس واحد شعنا جناس دلوت أنا نقضي تاجر أدوية نصام دلك الصومالي جيج أفريقيا يلي بتشينا شركة دوس الرئيس قعنت قبضة دوس صار تعال يقول لك صبح مركز صوت وسنة واحد قال يقول بشيء فدي الله حالك كريورس ما يا فرقة تعال يقول لك هذا ما دور وكوسا دويني برنامج كي كفتن ككلسن تي في وكوسا دويني ما سمعت وكوسا دويني سؤال ينكو يدينيا مقعاقنا ونو شيك دونتا هبينكي مريوتا هبينكي مريوتا هاي وكوسا دويني برنامج كفتن كي كلسن تي في سؤال بنكو يدينيا مقعاقنا waxaa la yiraahdaa Ismaawili habeenkii mariyota waa riyooda sheekadii kuugu riyo qosolka badnaa riyada kuugu qosol riyooda aqal raarta u weyn anoo raaliya haysta ya taasaan ku riyooda aqal raarta u weyn anoo raaliya haysta allaale wax loo dhigaa ma jirto aad badan ma san ugu soo dhaweynay barnaamijka kaftankii kalsan TV su'aal baan ku weydiinaya okay habeenkii mariyota qof kasta oo riyooda riyadii kuugu qosolka badnaa nooga sheekay waxay ahayd tii aan ku riyooday inaan dhimatay haye maxay markaa miyad inanta mees jeclaydeen bayna toonis naqaanay inantii oo is caashaqsanahay oo is kursanayna ku riyooday haddana waa meeyda ka war gulal xaaji baris waa kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftankii kalsan TV aad iyo aad baan ugu dhaway boqolkiiba boqol mahadsantahay walaadna waxaan filayaa barnaamijka la socota waan la socdaa dhowr jeer baan walaal daawaday waan la socdaa barnaamijkana aad baad u mahadsantahay su'aal baan ku weydiinayaa habeenkii ma riyootaa dee kulay riyooyinku iska jiraan riyooyinku is jiraan waa riyooda kulay laakiin riyooyinka kala jaada kulay dhowr riyaa jirade tiiba kuugu qosolka badnayd uga sheekeen dee waxay tan adigu dee wadamada Yurub dee aan riyo ku tagay subaxdiina qolkayga laga soo dhex kiciyay taasun bay day ugu qosol badnaaday anoo Yurub joogan ku riyoodo subaxdiin baad islaanta ka kicisay jinga diiradana hurda dee lu qadan waa bay ku noqotay taasa ana adduun kala daraaray inuu shaqaysan noqdo u badalay baan dee ku riyoonayay taas ay ugu la yaabanayd ugu qosol badnayd riwaayada ante riyo aan riyoodo magacaaga u sheeg bulshada magacayga waxa weyn Cabdisalaan Aadan Maxamed naanaysto oo Sikaawe aad baad u mahadsantahay aad baad mahadsantahay waa ku salaamay waan ka qaaday waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka iyo kalsan TV su'aal baan ku weydiinayaa magacaaga u sheeg bulshada ku daawanaysa magacaygu waa Khalid Muuse Maxamed su'aal baan ku weydiinayaa tan su'aasheen hore u gallo habeenkii mariyota maanigu anu mariyada ma gabigaygu waa laakiin qofku markuu bilaa xaaska yahay ma garanaysaa xaastii waxaayo inagu arrimaha kameynaan hadlay riyooyinku way badan yihiin marka mariyota oo kaliya baan ku dee riyooyinka kolay waa la riyoonayaa laakiin dee riyo aan sii xasuusanay ma jirto waan ka sheekayn karaa ya laakiin maanta maan abaalgudiyo maanay wax jirin de sometimes amaan free laga dhigeen waan ku salaamay السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka iyo kalsan TV wahagaag su'aal ayaan ku weydiinayaa habeenkii mariyota سيادة riyadii kuugu qosolka badnayd bulshada uga sheekay riyadii ugu qosolka badnayd waxay ahayd anigoo la dhoofay meel dalka ba joogno mar dambe wadana saarkay maxay ahayd anigoo jeer ku jiraba jeerkan maxaa ku keenay ilaa mar dambe layna kilo hurdo marka dambe raadani aan shaydan dib baan weysay salaad baan tukaday marka dambe ilaa labadii markii ay ahayd marka ilaa sagaalkii baan seexdo anoo hurdo si macaan hurdo ku jira baan saarkay anoo meel kale joogo xidhay qaar la garaacayo garaacna xog kaaga yimid mar dambe anoo meel xun marayo ma soo baraarugo ilaa weysay dib dambe u tukaday marka riyadaas ay ugu la yaab badnay riyooyin kale far badnaa way jiraan laakiin taas markasta ma soo xasuustaa waan qoslaa marka adiga madan qurxay waa ku salaamay walaga qaad walaha waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka iyo kalsan TV su'aal baan ku weydiinayaa habeenkii mariyota habeenkii dee marba la riyoodaa dee marba meel riyoodaa markaad riyooto un bal haye riyadii kuugu qosolka badnayd bulshada uga sheekay riyadii ugu qosol badnayd iyadoo meel aan marayso inaan adoo kala cas oo qurux badan yaabaysan bal taas ugu qosol badnayd ama kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka iyo kalsan TV waad mahadsantahay adigoo magacaaga noo sheegay su'aal baan ku weydiinayaa aniga magacayga waxa la Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdiraxmaan oo habeenkii mariyota anigu كل دير رياضة واحد بلادن كقف كده حبينات يو توي شرت لكن habeenkii riyadii kuugu qosolka badnayd nooga sheekay كل رياضة حاجة
magaranaysaay anagoo magaranaysaay nolol wanaagsan ku jiro meel fiican ay marayso ayay magaranaysaay ayuu waagii iga bariyay magaras dadna waxaan ka kacun dadna meel si kala ya markaas waa tiigu la yaab qabnay taas riyadii kugu qosolka badnay taas hada aad iyo aad maadsantahay adiga mش kaftankii Kalsan TV walaal aad baad sagal maadsan tahay wana soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinaya walaalo habeenkii oran maayo weyntaasay go'antahay waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftankii Kalsan TV aad iyo aad walaal ku soo dhawo su'aal baan ku weydiinaya ma riyoota kulay ha gaadan baa noolaan ayo kulay wariyana bal way su'aal riyadii kugu qosolka badnay ma kugu la yaabka badnay uga sheekay bulshada yow riyadii ugu la yaabka badnayd horta waxaan ku riyooday anoo noqday qofka ugu horeeyay Soomaaliya National Unionka kursiga ku fadhiistay laakiin mid baan eego haddana waxaan eegay East Africa inaan ka soo jeedo gaar ahaan Soomaaliland inaan ka soo jeedo dalkayga haddana oo doodaya uma neerko haddana cadceedda soo baxday ya bulshada ku daawanaysa magacaaga oo sheega dad mahadsantahay magacaaga horta waa Cabdinaasir Muuse Axmed masaakiinta ku nool ee dhalinyarada magaalada Hargeysa dhexdeeda aad iyo aad mahadsantahay soo dhaweynaya barnaamijka kaftankii Kalsan TV magacaaga noo sheeg waa dhawahay magacaaga waa Cabdinajiib Maxamed Jaamac Cabdinajiib su'aal baan ku weydiinaya ma riyoota horta kale qof walba wuu riyoodaa laakiin sida loo kala saxdo ma kala duwan way riyadii kugu qosolka badnayd bal bulshada uga sheekay wallahi horta de qofku markay hurdada caadiga ku jirto wax adigu xalan la yaab haysan baa dadka la yaaba laakiin se riyadii igu la yaab badnayd waxay subaxii aan ku riyooday anoo ka tanaasulay dhalashada Soomaaliland citizenship nimada macnaha Soomaaliland anoo ka tanaasulay oo dhalasho kala qaatay subaxaasaan ku riyoodan maalintaasaan ku riyooday qosolka wada ku soo dhawo Kalsan TV waan dhawahay adigoo magacaaga noo sheegay su'aal baan ku weydiinaya ma riyoota iyo horta ma riyoota waxa la yiri ma seexataa waa ka horeysa kullay anigu hurdada igu yaro ya hawlaha adduunka waa iska ogtoo dhibba meel buu kaga beegayaa moogta marka 4 saacadood baan habeenkii seexdaayo de marka nin hurdo badan gala riyoodo marka ma seexataa waa ka horeysa laakiin maalmahan seexdo waxa igu la yaabka badnayd maalintan ku riyooday anoo 5 Soomaaliyeed isu keenay dabadeetana 5tii markaan isu keenay oo aanu meel isugu keenno aanu dawladii dhisayno ayaa midba dantiisi ka hadlay dabeetana anigoo xanaaqsan baa waagi bariyaan shaqadii galay dabeetana dadkii baan isaf garan war maxaad ku xanaaqsanto show sheekadii baan moodaya in layla og yahay oo dadku dhibkii la qabaan naga baydha xalay soo dhabaad dadkii baan moodayna dareenkii la qabaano shiriyadii baaba ilaa subaxii aan ku jiray 9kii baan miirsado aanu inay wixii xalay aanay dhab ahayno ay riyo ahayd marka hawsha weyn baa aniga gaadhay laakiin aad baa uma seexdo dadka seexda aad u riyooday oo salaam magacaaga waxa la ogaas aadan aad baad u mahadsantahay waxaga daawadayaal waanu jecelnahay inaan idinla joogno oo barnaamijka halkaas ka sii wadno oo aan maxaraday halkaas oo caawa dhan sii wado fadhino laakiin waqtiga ayaa noo saamaxayn waan ogahay barnaamijkan waad jeceshihiin waad ku xirantihiin laakiin daawadayaal waxaanu idinka codsanaynaa idinkoo ah taageerayaasha barnaamijkan ku xiran inaad noo soo gudbisaan wixii sheekooyin aad haysaan sida sheekadan caawa halkan idinka akhriyayo kale waayo barnaamijka ay inoo xiisa gelinaysa barnaamijka inoo balaarinaysa barnaamijka ay xiisa gaar ah u sii sameynaysa aniguna insha Allah waan idin ballan qaadayaa inaan idin soo raacin doono maalinba sheeka aad iyo aad u xiisa badan daawadayaal barnaamijku waalinba maalinta ka dambaysa ama wiiga ka dambeeya ama habeenka ka dambeeya buu sii xiisa badnaanaya dad badan baa ku xiran dad badan baa suga idinka qudhiina waxaanu rajaynaynaa inaad isla kaaya garab taagtaan oo isla markaa maadaama tihiin garabkii uu ka duulaya barnaamijku way dadka ku xiran ee barnaamijkan daawana ee daawada ee taageera ayuunba maxaa dhahday iyaguna qaybta ugu laxaadka badan ka qaata waxaan u shaqaynaynaa waa idinka waan jeclaa inaan idinla sii joogo aan halkan caawa dhan sii wada fadhino kafeega si wada cabno laakiin waqtiga ayaa noo saamaxayn oo waqtiga ayaa inagu yar aadan caydiid ba halka gacanta iga haadinaya wuxuu leeyahay sagale caawa waad nagu dheereysay barnaamijka waxay idin socodsiinaysay anigoo sagal guura sidoo kale waxa kamarada iyo farsamada iyo isku soo dubarka barnaamijkan asaguna qayb weyn ka qaatay aadan caydiid aadan yariisow sidoo kale waxa asaguna barnaamijka nagala qayb qaatay Axmed Saciid dhammaan waxaan u mahad celinayaa barbaarta Kalsan TV oo iyaguna runtii nagu garab taagan barnaamijka sida iyo isarag dambe oo xiiso leh